بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الله سبحانه وتعالى يا مهدر الإسكالة الله سنوق لغيسين نعمه يادو وأوين ويوصل رئيسه انتهى نعمة الإسلام والإيمان ونعمة التوفيق. بعد الحمد لله ولا مسلمين اللي سنة يا محسنين في وكالة عدا الفرقان يوريا شيئا ومحسنين جزاهم الله خير الجزاء عن المسلمين والإسلام. انت تجد أحكام فرق بدنا أيها الله سبحانه وتعالى نوتي بيي وذلك المسلمين تاهي إن هذا غور قوان أحكامتها وحكم له العقيقة أما صوالي وحي أنه المها مركع دشان هو حلقة قورعة. هذا مثلا عن قصة عقيقة هي قورعة وقوشة وحل إلى هذا وعن مشروعة أحاديث هذا فربضا يا النبي صلى الله عليه وسلم قولهان يفعلهان بوغصونات أحاديث قولهان وغصونات وحكم له حديث إمام البخاري وصوص عري وكوري صحابي الذي قال سلمان بن عامر الضبعي. سلمان باوي النبي صلى الله عليه وسلم سوى غرنيا مع الغلام عقيقة فأهرقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. عنه قال شركي سوحا هذي عقيقة يا هذي حجي سديك بعضية وحقول كان كالسولية أو سماء وحكا كمارتي حيرة. حديث كاسمرك بخاري فيها لو تأثلوا هاي مسألة عقيقة اللي هذا. يوكل حديث أبو داود يسوع صار يوم السلم من النساء بن ماجه من حديث سمرة بن جندب النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى عنه كساء وحالات بقى وحبس وجرى عقيقة ديسة. هذا عقيقة لقد قورعين عقي الرهين بنقانا من محبوسة marka xaqiiqadaas rahan loogu dhigay oo rahan dhigay maalinka toddobaad ayaa laga gowracaa madaxa ayaa laga xiraa magacna waa loo bixiyaa. marka xadiid aad u fara badan baa arinta ku soo aroortay xaqiiqada ee shay mashruuca oo nabiga sallallahu alayhi wasallam umada uu bayaaniyay ficil ahaan nabiga uu sameeyay sallallahu alayhi wasallam oo xasan iyo xusein ayuu gacantiisa uga gowracay nabiga sallallahu alayhi wasallam xaqiiqada كان وافعل هان حديث ابن عباس ورني أبو داود ينصوص عليه غير كتبة عقى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين كبشا رواية كبشة كبشين النبي صلى الله عليه وسلم حسن والحسين مكسر وكمله أيو كالجورعي عقيقة مكسر وغوان أيو كالجورعي ثم كفعل هان السلاسل والسغنتها هذا عقيقة حرها للجورعي والنوعيه qofka laga gowracay xaqiiqada hadii yahay wiil oo ilaahay way ku siiyay waxa laga gowracay waa laba neef hadii uu gabar yahana waa hal neef weey. nabiguna sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri al-ghulam shaatani mukafi'atan wa 'an jariyati shaatun. wiilka xaqiisa waxa ahaaday laba neef oo ari ah, gabadha xaqiisana waxa ahaaday hal neef. marka sidaas loo gowracay wiilka iyo gabadhu sidaas ay kala yihiin. haddii meesha uusan ari iyo ida iyo waxaas aysan joogin shaata marka la yidhaahna ari cadka iyo iduhuba isku sida ugu jiraan. wakadalika culimada jumhuurtooda waxay qabaan waxaa la mida ariga iyo idaha waxaa la mida geela iyo lo-da iyaguna waa la mid. waxayna uga qiyaasanayaan udxiyada waxayna waxa laga wixii udxiyada ku gudayay xaqiiqadana waa ku gudaya oo geela iyo lo-da iyo arigana waa saas oo kale waa looga cunuga yarka ah oo gabaraha aadamiilaha ahaadee waa u gudmaysaa. aragan shaatada luuqada carbeed dhexdeeda xataa way soo gudagalayaan bay culimadu leeyihiin geela iyo lo-du way soo gudagalayaan. tashriig ma lagu samayn karaayo sida udxiyada neefka lo-da ama neefka geela 7 qof ay u wadaagayaan ma loogu wadaagi karaa mise maya? culimadu waa isku khilaafaan. aimada shaaficiyada waxay qabaan tashriig inuu bannaan yahay oo hal neef oo geela 7 cunug waa looga waqwali karaa ama ma ahane waxa weeye neef lo ah sida udxiyada ay uga gudaysa 7 qof halkaasay ku dhiseen. culimada qaarna waxay mayaba kala duwan yihiin. udxiyada
iyo caqiiqadu axkaamta inta badan waa iska leeyihiin laakiin arrintan ku saabsan wadaajinta toddoba qof toddoba cunug lagu wadaajinayo neef kala mid ma aha udxiyada waxaa la rabaa qofka neefka inuu banaan yahay canuga xaggiisa laga gowracayo oo cid kale aan la wadaajin sidaasaana xoog badan waa sida Ibnu Qayyim iyo ay dooranayaan marka neef geela laba neef oo geela wiilkii xaggiisu noqonaya gabadhina hal neef oo geela haddii markaa ari meesha uusan jirin haddii la ay jirtaan laba neef oo la ah wiilkii haddii markaa gabar ay tahay hal neef oo la ah haddii qofku qarashka faraha badan iyo waana sida Anas uu sameeyay jiray Anas ibn Malik ilmihiisa wuxuu ka gowrici jiray geelaas ayuu ka gowrici jiray marka saxaabada xaggeeda waa ka sugantahay inay sidaa yeeleen haddii marka geelaas uu qaali ku noqdo qofka ama meesha uu joogo aan laga helaynin wuxuu samayn karaa inuu wakiil samaysto qofka ka wakiil ah ila wax kastoo adigu aad samayn karto la baashida karto wakiil loo samaysan kartaa oo marka meel arigii laga helayo oo marka wakiil iga noqo uu yiraahdo canugayga noocaas ahaa ayaan doonayaa inaad wakiil iga noqoto inaad marka xaqiiqadiisii aad ugu birayso marka dadka dabadaha jiro oo kala meelaha aan ariga iyo idaha ayaan laga helaynin dad meelo kale jooga sida Soomaaliya oo kale ayaa wakiishan karaan markaasaa laga gowracaya ee wakiil laga yahay wax dhibana ma laha xoolaha lagu sameeyo xaqiiqada waxay la mid yihiin xoolaha udxiyada oo kale xagga shuruuda waa ceebihii ka maray afartii ceebood oo xadiiska ku soo aroortay udxiyada aan loo ogolayn sida midda ishala midda lugta jaban midda weyda joogsato caatada ah midda jiran waxaasoo dhan lama ogola laakiin midda kale da'du waa inuu gaaraa hadduu neef aricada uu yahay hal sano waa inuu dhamaystir sanadkii labaadna uu galay hadduu neef idaa yahay waa in 6 bilood uu dhamaystirantay bishii toddobaadna uu galay neef geela hadduu yahay waa in 5 sano jiraa sanadkii lixaadna uu gudagalay adigu sinigii laga firinayo udxiyada kadaalika sidaas oo kale ayaa neefka xaqiiqada ah asagana taas oo kale looga fiirinayo axkaamta isaga mid weyn marka waxay noqonaysaa jinsiga lagu gowracaya waa ancaamta dada laga fiirinayaana waa noocaas xagga sinigeeda lamid tahay midda udxiyada ceebana aysan lahayn neefkaasi wax ceeba uusan lahayn goormaa la gowracayaa waqtiga ugu fiican sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiiska hadda akhrinayna ku jirtay nabiguna ficil ahaan uu sameeyay waa maalinka toddobaad anagu markuu 7 maalmood uu joogo ayaa laga gowracayaa maalinkaasana ugu fiican haddii maalinka ay ku seegto maalinka 14aad baa ku xiga xagga wanaagga iyo fadliga haddii maalinkaas 14aad ay ku seegto maalinka 21aad waana sida Caaisha radiyallahu ta'ala anha ka sugan oo inay sidaa marka ay fadwootay fadwadana culimada qaarkood waxay ka dhigaan xukun rafci inay leedahay oo ijtihaad arrintaasi ay sanahayn Caaisha nabiga sallallahu alayhi wasallam xajiisa ay marka xukun ka yimid uu noqonayo marka sidaas waqtigana uu noqonaya waaya xigmadda ku sugan maxay tahay xaqiiqada waxana xigmad aad u weyn baa ku sugan waa shukru lillahi subhanahu wa ta'ala ala ni'mati alwalad ilaahay caruur buu ku siiyay caruur siismada ilaahay uu ku higay caruurkana waa nicmo weyn nicmada marka waxaa la doonayaa in la qaabilo shukri ilaahay subhanahu wa ta'ala nicmadii uu ku siiyay looga shukrinayo walaal qofka markii aan loo dhalo waxyaalaha tahniyada loogu tahniyada ku soo waxaa kamid ah in la yiraahdo barakallahu laka fil mawhubi wa shakarta alwahiba wa balaqa ashuddahu wa ruziqta birra ilaahay ku barakay midka lagu soo hibeeyay allihii hibeeyana mid ku shukriya allaha ka dhigo anugaana ilaahay qaangaarsiiyo awoodha siiyo birrigiisa iyo wanaagiisana allah subhanahu wa ta'ala ha kugu irzaaqo marka xaqiiqada axkaamteeda aad bay u fara badan tahay laakiin inahaas waxaan u malaynayaa wixii su'aalo ku yimaado mooyaane qaabka noocaas ayaa loo maraya waxaa jira dad caruurtooda ay waaweynaadeen oo 4 ama 5 ama 3 ama ka badan ay jiraan iyadoo maartay aan loo waqlalin marka kuwa ka waran bal xaqiiqada xukunkeeda culimadu waa isku khilaafsan yihiin culimada qaar waxay leeyihiin waa sunna mu'akkada waana madhabka jumhuurta ay maraan culimada qaarna waxay leeyihiin waa waajib waana sida ka daahirka nusuusta ka muuqanaysa ilaa amar baa soo arooray fa ahriqu canhu daman sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay xaggiisa ka gowrac dhiig ka daadiya marka taasi waxay tusinaysaa in ay waajib tahay amarkana waxaa lagu xambaaraa wujuub haddii markaa wax nasaho kale oo daahirkaas ka sarfinayo wujuubka uusan jirin marka xukunka haddii aan idhaahno xaqiiqada waa xukun waajib ah
qofka ilmaha mas-uulka ka ah waajibka ayaa saaran hadduu awoodi karo. hadduu waqtigii loogu talagalay uu ku yimaado waa sidii la rabay, hadday kadib dhacdana waa dayn saaran, waa inuu markaa iska gudaa mar allaala markii ay fursadda u saamaxdo. anuga hadduu 7 jiro ama 5 uu jiro ama 6 uu jiro ama 10 uu jiro ilaa uu ka qaangaaro adiga xil baa kaa saaran. hadduu qaangaaro asagoo iska birayn kara hadduu rabo. waana sida culimmada culimo badan ay mareen salafkana laga soo naqliyey iyagoo qaangaar ah oo rag noqday inay markaa udxiyo baada caqiiqadii ay iska gowraceen oo iyago xaggooda ay ka gudeen. marka arrinta sidaas weeyaano waqtigii loogu talagalo haddii ay kadib dhacdo waa lagaa sii rabaa inaad waqtigii ay kuu suurta gasho aada gudato. sida sunnada waxaa fiican neefka oo caqiiqada lagu bixinayo in la isugu yimaado, dadka loogu yeero dariska, dadka kale oo asxaabta saaxiibada tihiin. arrintiisana aada loo soo caan bixiyo ummadda ay meesha isugu timaado si markaa nicmadaas weyn ay u muuqato, dadkuna ay u dareemaan meesha waxaa la isugu yimid iyo canugan ilaahay uu keenay koonkan iyo wanaagga meesha ka dhacay. sidaas meeshaan lagu kariyo, culimada qaar waxay fadileen in la kariyo oo iyadoo ciidina aan la qaybin. waxaa kaloo bacdu saxaaba sida caaisha radiallahu tacaala canha ka sugan xaggeeda inay fadwooto inaan lafaha la jejebin. waxna soo marfuuci kuma soo aroorin oo nabiga loo kor yeelay sallallahu alayhi wasallam, laakiin bacdu waxa aasaar oo saxaabada qaarkood sida caaisha oo kale ayaa waxaa ka sugan inay markaa ay diideen in la jejebiyo. waxay tafaa'ul baa ku sugan, tafaa'ul xasana. waxaa la samasaadayaa in cunugan lafihiisa ay nabad galaan oo wanaagsanaado oo barbaaro awoodiisaas u yeesho. marka waa inaan waxba la jejebin, lafiho sidii ah dadkii marka waxa weeyaan la siiyo. sidaasaana fiican iyadoo ciidina intii la qaybin lahaa in la kariyo oo dadkii dhamaan sidaa loo kala gaarsiiyo, sidaasa fiican. marka lafta hadhowta lama dhuuxayo miya? lafta maya, lafta in la dhexay laga jebiyo lama ogola oo la jejebiyo sidaas waa. laakiin waxada oo maanic ah oo xadiis arrintaa nahyi kusoo aroray ma jiro, laakiin waa sida fiican bay culimadu leeyihin inaan la jejebin. haddii la jejebiyona ba'si ma laha oo dhuuxaya waxaa laga samaysto la jejebiyo, laakiin waxa weeyaan inaan marka horeba la jebin oo sidaa loo dhaafo ayaa fiican bay leeyihin.